halka jannadana uu nabigu yiri ramadaan haddii uu yimaado ayaa albaabada jannada la furaa uu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam bimacnaa waa maxay kii janno doonayo albaabadii jannada waa lagu furay jannada soo gal oo haddii bishaas aad ka faa'iidaysatid waxaad ehel u noqonaysaa inaad noqoto dadka jannada galaya jannada loo furay allah inaga dhigo وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا إلهي بقراك إنه شيء في آخر سورة الزمر ذاتك متقين تأدونك دشيد إلهي كبقاي جنة حقيقة آيات دقدر سيدقدر وقوك حين دونار إلهي iyaga oo maaragtana koox u socda siday u kala fadli badnaayeen isugu acmaal ahaayeen ayaa la isugu xidhxidhayaa deedna jannada xaggeega ayay malaa'igtu u kaxaynaysaa markay jannada iriddeeda hor yimaadiin ayaa ilaahay wafutixat abwaabuha wowgaas wuxuu macnaynayaa uu sheegayaa albaabada jannadu ma furnee markay iridda jannada ay soo joogsadaan baa albaabada loo furayaa wa qaala lahum khasanatuha malaa'igtii jannada ilaalinaysana waxay odhan doonaan salaamun calaykum tibtum fadkhuluuha khaalidiin nabadgelya dushiinna ahaatee albaabadii jannadana waa ka hadda laynii furee waad wanaagsanaateen oo waad mutaysateen jannadee gala oo jannadii waa taasoo kuwaagii baa la odhan doonaa waa tahay jannadii caamir bin cabdilqays ayuu ahaa ninkaas waa ninkii maalintuu dhimanayay ayuu ooyey baa lagu yidhi markaasaa loo maleeyay inuu dhimashada ka baqaayo markaasaa lagu yidhi maxaad la ooyeysaa nin caabida oo magaalada dhan ee basro leedha caabidkaygaa lagu odhan jiree intaasoo jihaadna waad ka qayb gasho diinta halgankeyga meel fiican baad ka gaadhee maxaad la ooyeysaa baa lagu yidhi laba shayba lama ooyey buuhi horta iga qora laakiin laba camal oo maanta iga go'aya oo dib dambe u arkay maan la ooyayaa buu ku yidhi labadaan la ooyey baa nin sheegi buu yidhi cabsi aan aakhirada ka baqaayo lama ooyaayo adduunyadan aan ka tagaaya jacaylo aanu qabana lama ooyine laakiin laba camal oo adduunka dusheeda aan ku qaban jiray ayaa haddaan maanta aan dhinta iga go'aysay buuhi waa labadee alsawmu fi alsayfi waalqiyaamu fi alshitaa xilliga dhulku uu kulul yahay soomka aan soomi jiray iyo jiilaalka dhaxanta salaataleylka biyaha qabow aan ku weysaysanaya dhaxanta dhexdeeda aan ku tukanayay labadaa camal baa iga go'ayso dib dambaan u arkayno labada aan la ooyey waa labadaas ogaada uu ku yidhi وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس صلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا الجنة بربكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله إلهي معكم علينا bishan barakaysan run ahaantii waa mawsim alxasanaat qolo walba mawsim bay leedahay ganacsatadu mawsim bay leedahay xilliga ay dadka ganacsatadu ay lacagaystaan waa xilliyada maaragtaan ee ciidaha siyaasiyiintuna waxay leeyihiin mawsim iyakuna siyaasadooda waxay meelaha la qaylqayliyaan marka doorashadu ay soo dhowaato qol walba badeecadda ay haysato xilli ay dadka u bandhigta ayaa jira
tujaartu badeecadooda xilligan ay soo saaraan. siyaasiyiintuna badeecadooda waxay keenaan xilliga siyaasaddu ay dhowdahay, doorashadu ay soo dhowaato. ayuu nin walba fikraddiisa hadday qaldan tahay hadday saxsan tahayba dadka markaa ayuu u bandhigaa ayuu ka iibiyaa. waa kuwa meelaha ka qaadaya aragteen. dadka xoolo dhaqataduna iyakuna mawsim bay leeyihiin. markay maqlaan ciiddii baa soo dhowaatay, khaasatan ciidda carafo ama xoolihii wadannada carabta loo dhoofinayay baa la furay. markay maqlaan iyaguna badeecadooda markaasay bannaanka soo dhigaan. bisha ramadaanna waxa weeyaan waa mawsim iyadana la yidhaahdo dadka ilaahay doonaya inay u dhowaadaan, dadka doonaya aakhirada inay camirtaan, dadka doonaya ilaahay inay raalli geliyaan. mawsimkoodu iyaguna waa bisha ramadaan weeyaan. laanna waa bil aad u barakaysan weeyaan, oo ilaahay baa casa wajalla qur-aankiisa ku sheegay inay bishani ay bilaha ka duwan tahay. waxay kaga duwan tahay bilaha soonka waxaa laga dhaxlaa alla ka cabsi, taqwad. bishani bilaha waxay kaga duwan tahay qur-aanka kariimku bisha ramadaan dhexdeeduna soo degay. bishani bilaha waxay kaga duwan tahay habeen laylatul qadriya bay xambaarsan tahay ku wada. bishani bilaha waxay kaga duwan tahay waa bil habeen walba ilaahay casa wajalla uu leeyahay addoommo uu naarta ku xoreeyo. bishani bilaha waxay kaga duwan tahay ducada muuminka ayaa la aqbalaa buu nebigu yihi. xilliga uu afturku dhow yahay saa'ilku waxa uu leeyahay duca la aqbalay xilliga ducaysta oo baahidiina ilaahay u sheegta. bishani bilaha waxay kaga duwan tahay waa kii nebigeenu lahaa calayhi salaatu wasalaam, cumratu fii ramadaana tacdilu xajatan maciya. bisha ramadaan dhexdeeda ninka cimraysta, cimrada bisha ramadaan dhexdeeda la cimraysan waxay u dhigantaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam xaj aniga layla xajiyoo kale u dhigantaa buu rasuulku yidhi. bishani bilaha waxay kaga duwan tahay oo nebigeenu sheegay calayhi salaatu wasalaam, ramadaan haddii uu yimaado albaabada naarahana waa la xidhaa, albaabada jannadana waa la furaa, maradatu shayaadiinna waa la xidhaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. ramadaan haddii uu yimaado albaabada naaraha waa la xidhi. oo waxaa laga fahmayaa xadiiska waa maxay? 11 bilood oo kale oo dhan naarta albaabadeedu way furan yihiin oo iska ballaqan yihiin. halka jannadana uu nebigu yihi ramadaan haddii uu yimaado ayaa albaabada jannada la furaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. bimacnaa waa maxay? kii janno doonayo albaabadii jannada waa lagu furay, jannada soo gal. oo haddii bishaas aad ka faa'iidaysatid waxaad ehel u noqonaysaa inaad noqoto dadka jannada galaya jannada loo furay. allah inaga dhigo. wasiiqa aladiina ittaqow rabbahum ila aljannati zumara xataa idaa jaa'uuha wafutixat abwaabuha waqaala lahum khazanatuha salaamun calaykum tibtum fadkhuluuha khaalidiin. wasiiqa aladiina ittaqow rabbahum ila aljannati zumara. ilaahay baa qur-aanka inoogu sheegay fii aawakhiri suurati zumar dadka mutaqiintae adduunka dusheeda ilaahay ka baqayay jannada xaggeega ayaa si degdega loogu kaxayn doonaa baa ilaahay yidhi. iyaka oo maaragtana koox u socda siday u kala fadli badnaayeen isugu acmaal ahaayeen ayaa la isugu xidhxidhayaa. leanna jannada xaggeega ayay malaa'igtu u kaxaynaysaa. markay jannada iriddeeda hor yimaadiin ayaa ilaahay yidhi wafutixat abwaabuha. wowgaas wuxuu macnaynayaa uu sheegayaa albaabada jannadu ma furnee, markay iridda jannada ay soo joogsadaan baa albaabada loo furayaa. wa qaala lahum khazanatuha. malaa'igtii jannada ilaalinaysana waxay odhan doonaan salaamun calaykum tibtum fadkhuluuha khaalidiin. nabadgelya dushiina ahaatee albaabadii jannadana waa kaa hadda laynii furee, waad wanaagsanaateen oo waad mutaysateen jannadee gala oo jannadii waa taasoo kuwariyo baa laodhan doonaa waa tahay jannadii. allah inaga dhigo. marka ramadaan haddii uu yimaado buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam albaabada jannada ayaa la furayaa. bimacnaa
كوبي طبعاً كبلوغ وقرنا جنة الباب والحريه لماذا وقال الله تعالى إن ذلك المتقين تلقوا أبا المريو إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا إن للمتقين في جنات وعيون إلهي قرآنك وكقور ربي مركا ذاتك أدونك دوشيد إلهي كقبقى متقين الله كعبسك له إلى الجنة أي متيستين با إلهي قرآنك وكشيغي مركا هديه الرمضان إمادنا وحاو نبي ولايهي البابد النارها والله حريا وكوبي يتوكل بالله وكلا النار البابد الويف فرنيدو بمعنى ذاتك النار تكوه ولا يبضويا والعياذ بالله ذاتك بمنايا أهل النار كأيا كتير بدن أهل الجنة ذاتك الجنة قال يا نبي الكوبي أبدا إلهي نهاية نقول هو الجنة متست لأن حديث إلهي يكون متست Illuminati, like, share, comment.